asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janaalka mar kale soo dhowaada aad iyo aada u mahadsantihiin maanta waa arbaco waana kowda bisha toddobaad ee julaay sanadka 2000 iyo maanta idinkula wadaago xubnaha labada xisbi ee dimuqraadiga ah iyo weliba republikaanka oo shalay guddi ka tirsan aqalka wakiilada ee Congress-ka ay hearing ama dhageysi la xiriira immigrationka ay lahaayeen oo xubnuhu ay ku sigteen in gacanta ay isula tagaan haddaba maxay yihiin waxyaabaha ka careysiiyay xubnaha dimuqraadiga ah mar uu hadal jeedinayay xubin ka tirsan xisbiga republikaanka oo laga soo doorto gobolka New York arintaasi waan idinla wadaagayaa iyo buuqa xubnaha labada xisbi ay gacanta isula tagaan oo ay isfeeraan haddaba arintan sidee ku dhacday ayaan rabaa inaan idinla wadaago guddiga aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka guddi hoosaadka u qaabilsan dhinaca cadaaladda immigrationka madax banaanida sidoo kalena ammaanka iyo dhinaca dhaqangelinta sharciyada ayaa waxay lahaayeen dhageysi la xiriira immigrationka sidaan ognahay xisbiga aqlabiyadda iska leh oo markastaba hogaaminaya labada aqal ayaa waxa ay yeeshaan gudoomiyaasha gudiyada xisbiga aqlabiyadda yarna gudoomiye ku-xigeenada ayay leeyihiin marka guddigan waxaa gudoomiye ka ahaa Tom McClintock nin la yiraahdo oo Republican ah oo California laga soo doorto marka waxa la dhageysanayay hooyo la yiraahdo Jessica Gorman oo gabadheeda oo la yiraahdo Sheridan Gorman oo 18 jir ah bishii March 19keedii nin soo galooti sharci la'aan ah oo Venezuela ka yimid uu ku dilay magaalada Chicago ee gobolka Illinois ninka dilayna waxa la yiraahdaa Jose Medina waa 25 jir sharci la'aan ah oo ka yimid wadanka Venezuela marka hooyadan Congress-ka ayaa u yeeray balse ay uga hor hadasho maadaama gabadheeda la dilay marka qof la dhageysanayo oo guddi ka tirsan Congress-ka waxa introduce kareeya oo guddiga soo hordhiga xubin ka tirsan deegaanka qofkaasi uu ka yimid marka xildhibaankan la yiraahdo Mark Lawler oo isagu Republican isla markaana deegaanka haweeneydan ka soo jeedo laga soo doorto ayaa haweeneydan introduce u sameynayay oo guddiga soo hordhigay sharciyo waxa jira marka guddiga u yaala xubinta introducing ka sameynaya oo qofkan guddiga u soo bandhigaya in uu hadalkiisa ku koobo haweeneydan in uu sheego halka ay ka timid magaceeda iyo sidoo kale sababta ay halkan u joogto ma ahan hadal dheer in uu halkaasi ka jeediyo marka xildhibaanka la yiraahdo Mark Lawler hadal dheer ayuu halkaasi ka jeediyay taasina waxa ay ka careysiisay xubnaha dimuqraadiyiinta ninkan soo galootiga sharci la'aanta ah oo isagu gabadhaas yar oo 18 jirka oo jaamacad ka dhiganaysay Chicago dilay wadanka sharci la'aan ayuu ku soo galay bishii May 9keedii sanadkii 2023 ciidamada xuduudaha markay ay qabteen waa ay soo daayeen June 19keedii isla sanadkii 2023 dukaan ku yaala Chicago isagoo alaab ka xadaya ayaa la qabtay markaas kadibna waa la xiray haddana waa la sii daayay marka waxa ay leeyihiin Republicaanku waxa ahayd ninkaasi in la masaafuriyo in uu wadanka sii joogo ma aysan ahayn Back in May of 2023, over 3 years ago, Sheridan's murderer illegally entered the United States. Border Patrol caught him. They apprehended him. But then, because of the Biden administration's ludicrous open border policies, he was released into our country. A month later, he was arrested for shoplifting in Chicago. Under existing law and the law at the time, he should have been deported right then and there. marka waa kan xildhibaan Mark Lawler oo marka hore haweeneydan iyo sababta halka ay u joogto iyo gabadheeda la dilay ka sheekeynaya oo soo bandhigaya I'm here today to introduce Jessica Gorman. Jessica should not be here today. She should not be testifying before Congress. She should be back in New York with her daughters Madeline and Sheridan, enjoying a quiet Tuesday afternoon in the summer. But unfortunately, Jessica is here with us today. And she's here because just a few short months ago, her beautiful daughter Sheridan was shot and killed in Chicago by an illegal immigrant. I cannot say it loud enough or clear enough, but this nation and this Congress owes you an apology. We are sorry to you, to Tom, and to Madeline.
I didn't know Sheridan personally, and that's a tragedy. markaasi kadib xildhibaankan hadalkiisii ayuu dheereeyay introducing ayaa looga baahnaa in haweeneydan sababta halkan ay u joogto uu sheego kadibna iyada microfonka lagu wareejiyo oo ay hadasho marka hadal dheer ayuu sii galay gudoomiye ku-xigeenka guddiga marka waa Pramila Jayapal oo dimuqraadi ah oo Washington State laga soo doorto sidaas darteed waa ay ka soo dhax gashay isagoo hadlaya waxa ayna tiri gudoomiye ninkan ma jeedinayo introduction ma sameynaya statement qoraal dheer ayuu akhrinayaa arintaasina kuma jirto sharciyada u yaala guddiga marka isagii waa uu hadlay Mark Lawler ayaa isaguna hadlay waxa uu yiri waxaad ku guuldareysateen shaqadiina inaad qabataan sidaas darteed ayaa Pramila Jayapal waxay leedahay waxaan ka codsanaynaa gudoonka in xildhibaankan hadlaya sharciyada guddiga uusan ku xadgudbin maxaa yeelay guddiga iyo xubnaha minority-ga hoggaanka guddiga iyo xubnaha minority-ga heshiis ayaa u yaala markaas kadib xildhibaan Mark Lawler oo hadalka watay ayaa waxa uu leeyahay waxa aadan doonaynin inaad maqashaan faahfaahinta sababta ay gabadhan u dhimatay maxaa yeelay arintaasi waa muhiim marka bal isweydaarsigaasi hadalkaasi labada dhinac dhaxmaraya walow uu sii kululaan doono qaybaha dambe aan idinku maqashin doono waa tan mar kale Mark Lawler iyo Pramila Jayapal iyo gudoonka guddiga sida ay arintaasi ay uga hadlaan Sanctuary policies Mr. Chairman, are the reason. Point of order. why- This is a statement, not an introduction. Lady's point is well taken. Gentleman, please confine his remarks to the introduction. Thank you. By our federal laws. Point You of all order, should be this is ashamed not of an yourselves. introduction, it's a speech. You should be ashamed of yourselves. Mr. of Chairman, order. disgraceful. Mr. Chairman, I we ask for a had, ruling on the Mother point of is order. here. Chairman, Precisely because you have failed to do your job. Yes, Mr. You wonder Chairman. why we had 4 Everybody four settle down. hearings? It's because you don't understand gentlemen the will consequence of suspend. sanctuary Mr. policy. Chairman, Gentlemen unfortunately, will we won't suspend. give our approval for people to introduce their constituents if people don't stick to the rules. So I appreciate the chairman's insistence Yeah. that we stick to the rules and that you have the opportunity to introduce your constituent, which Right, I and think you have introducing done. my So constituent thank you very is- much, Mr. Lawler and Mr. Is Chairman. sharing the please have details committee of her death. be in You may not order. want to hear the details. It may be an inconvenience to Mr. you, Chairman. but these details matter. The gentleman will suspend. We have an agreement with the minority that the introductions will be introductory only. So if I could just ask for the gentleman to make that introduction and conclude. Sure. markaasi kadib doodu waa ay sii kululaato waa meesha lagu siganayo xubnaha in ay gacanta ay isula tagaan xildhibaan Mark Lawler oo hadalkiisii la siiyay in uu sii wato ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah xubnaha dimuqraadiyiinta ee meesha fadhiya aysan maqlaynin runta in ay maqlaan maxaa yeelay sida ay uga careysan yihiin Renee Good iyo waliba Alex Brady waa labadii muwaadin ee Mareykanka ah ee magaalada Minneapolis ciidamada ICE ay ku dileen 7 January ee sanadkan iyo 24 January markii howlgallada ICE ay ka wadeen waxa uu yiri sida ay uga careysan yihiin waa inay u muujiyaan carada Laken Riley oo iyadoo gabar jaamacad ka dhiganaysay Georgia oo nin Venezuela ka yimid oo sharci la'aan ah February sanadkii 2024 uu dilay iyo waliba gabadhan kale oo la yiraahdo Sheridan Gorman oo bishii March 19keedii soo galooti karo sharci la'aan oo Venezuela ka yimid uu dilay markii hadalkaasi uu sheegay marka ayaa isla markiiba waxa soo booday xildhibaan Jamie Raskin oo Maryland laga soo doorto oo dimuqraadiya markaas wuxuu yiri arintaasi waan dareemeynaa caradaasi aad sheegaysid marka wuxuu yiri adigu bal hal eray waxa aad ka tiraahdaa Renee Good iyo sidoo kalena Alex Brady marka Mark Lawler waa uu soo boodo wuxuu yiri I did arintaasi waan sameeyay maxaa yeelay maqaal dheer ayaan ba New York Post aan ku qoray markaas kadib ayaa waxa uu sheegay Jamie Raskin waxa uu yiri ma fahansanid sharciyada guddigan isla markaana dastuurka sidoo kale wadankeena ma fahansanid sidaas darteed ayaa markii dambe hadana Pramila Jayapal iyo gudoonka guddigu ay soo kala dhaxgaleen waxana Pramila Jayapal ay tiri ma ogolaanayno heshiiskii u dhaxeeyay aqlabiyadda ama hoggaanka guddiga iyo waliba xubnaha aqlabiyadda yar leh in lagu xadgudbo gudoonka guddigana waxay ku eedeysay inuusan xakameyn karin xubnaha xisbigiisa ee guddiga ku jira sidaas darteed ayaa marka doodii gabi ahaanba ay kululaatay isla markaana ay isku bedeshay mid qaylo ah iyo in faraha la isku taagtaago bal qaybtan dambana ila daawada sida ay wax u dhaceen So while some of my colleagues may not want to hear the truth, the same outrage you feel about Renee Good and Alex Preddy, Mr. you Chairman, should feel about would you Sheridan Gorman please and end Laken Riley this- and every Angel end this family in statement? this country. I do feel that outrage. You do not. Do
Because if you did, you would not support sanctuary jurisdiction. Do you feel the outrage about Alex Reddy and Renee Good? You should be ashamed of yourself. You don't belong in this committee. You should get the hell out of here. You don't understand the rules of the committee. You don't understand the Constitution. You're a disgrace. Mr. Raskin, Mr. Raskin, You're an absolute disgrace supporting sanctuary policies. Say one word about Get rid of say one word about Alex Reddy and Renee Good. I did. I wrote a whole New York Times op-ed about it. You should be absolutely ashamed of yourself for not opposing sanctuary policies that resulted in their daughter's death. The committee will be in order. Mr. Chairman, I just want to say we will not allow, thanks to Mr. Lawler's outrageous outburst, we will not allow this to happen again. This was an agreement between the chair and the ranking member, and unfortunately, you're not able to control your members, so it is time for us to proceed. Your opening statement was outrageous. Get off of it. Let's try to conduct ourselves in a civil manner. Speak that to your member, Mr. Chairman. ugu dambeyntii waxaa soo badanaya xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ee socialistiga ah kuwaasi oo doorashooyinkii ugu dambeeyay ee isla reebka ku soo baxaya toddobaadkii hore New York waxaan ognahay 3 xubnood oo maayarka magaalada New York Zoran Mamdani uu taageeray inay soo baxeen hadda marka 8 xubnood ayay gaarayaan xubnaha Democratic Socialistiga ee soo baxay shalay Colorado doorashooyin isla reeba ayaa ka dhacay haweeneyda la yiraahdo Diana Digette oo ilaa sanadkii 1997 degmada koobaad ee gobolka Colorado laga soo dooranayay ayaa doorashooyinka isla reebka shalay waxa uga adkaaday haweeney la yiraahdo Milad Kiros oo iyadana Democratic Socialistiga ku jirta marka taasi waxay ka dhigaysaa in 8 xubnood oo Democratic Socialistiga doorashooyinkii ugu dambeeyay isla reebka ay soo baxeen waxaana ku jira nin muslim ah oo wadanka Masar asal ahaan ka soo jeedo oo Dr. Adam Hisham Hamawi la yiraahdo isla markaana degmada 12aad ee New Jersey ayuu ku soo baxay doorashooyinkii isla reebka doorashooyinkii dhacay bishii June ee la soo dhaafay horaanteedii dhinaca sidoo kalena gudoomiyaha gobolka ayaa Colorado ayaa tartan uu ka jiray Jared Polis oo 8 sano ee la soo dhaafay hogaaminaya ayaa xilka ka dagaya marka doorashooyinka isla reebka shalay waxa ku soo baxay Phil Weiser oo xeeralyaha guud ee gobolkaas waxaana uu ka guuleystay Senator Michael Bennet oo la tartamayay marka Phil Weiser ayaa xubin Republicana la tartami doona doorashooyinka November marka la gaaro aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi